السلام عليكم kusoo dhawaada casharkeena xiga ee barashada Windows 10 casharkeena ugu dambeeyay waxa ka soo hadalnay taskbar-kan hadaba casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay desktop-kan iyo waxyaabaha sida default-ga ah u saaran markii aad soo shido shaashadaada Windows 10 ah hadaba icons-kan aad u jeedo waa waxyaabaha ugu horeeya ee computer-kaaga markii uu soo shidmo aad ku arki doonto hadaba wax kale desktop-ka ma soo saaran karaa يعني waxyaabo cusub ma soo saaran karaa kuwan saaran mid kamid ah ma iska daleedi karaa ma qasab ba inay saarnaadaan casharkeena wuxuu daarnaan doonaa intaas okay ugu horeyn kan waa yani userka computerka network adigoo waxyaabo caadi ah recycle bin waa wax marka daleedid computerka wax ka daleedid galayaan control panelka waa computerkaaga settingskiisa customizationkiisa iyo waxyaabahaas this PC waa meesha fileskaga maskaxda computerka yani waxyaabaha kugu jiraan keyboardkana waa sawir aan meesha soo saartay oo aan rabo inaan wax ku sharxo maanta hadaba sidee wax cusub ugu soo dari karaa halkan waxa ugu soo dari karaa wax cusub tusaale kale application marka soo dejiyo waxa dhihi karaa yani shortcut soo ah iyo soo dhig shaashada waxyaabahaas oo waa gaari doonaa balse waxyaabahan saaran tusaale kale hadii kugu jir yihiin oo kale waa soo dhaweysan kartaa view adigoo tagay right click inta dhahdo view aad tagaysa large icon ka dhiganay yani way ku soo weynaanayaan okay waxa dhigi kartaa view inta dhahdid medium yani meel dhexe iyo small key oo marka hore inoo ahaaba sidaas waana yareysan kartaa saaid waa u weyneysan kartaa dhexdhexaadna waa ka dhigan kartaa adigoo isticmaalaya muuskaaga hadda waxaan ku daynayaa medium oo ah meel dhexe okay ma delete garayn karaa kuwan mid kamid ah ma qarin karaa okay waxa sameynaysaa view dhamaantood horta waa ka saari kartaa shaashada waxyaabaha saaran oo dhan adigoo halkaas tagay view dhahaya right click inta dhahdo view dhahaya kadib show desktop icons ka qaadaysaa jag shaashada dhan xataa waxyaabo badan hadii saaran yihiin way banaanaan doontaa okay view ayaan leeyahay markaan rabo inaan dib u soo muujiyo kadibna show desktop icons ayaa leeyahay okay taas waa isla fahanay sidee mid kamid ah loo qarin karaa hadduu mid iga qarsoon yahay waxyaabaha default-gan ka hadlaa uu la soo dago Windows 10 kuwan sidee mid kamid ah u qarin karaa sidee mid hadduu iga qarsoon yahay u soo muujin karaa waxa imaan doona right click inta dhaho personalize marka imaan settingkiisa si toos ah ii keeni doonaa kadibna waxaan tagi doonaa themes marka imaado waxaan tagi doonaa halkaas ay ku qoran tahay desktop icon settings marka halkaas taabto waa kana sida ku muuqata recycle bin oo kala raba inaan ka bixiyo kiliga ka qaadaya okay yaa leeyahay ama apply kadib okay sida arkeeno recycle bin waa uu ka baxay waxyaabaha ii saaran shaashada dib ma ugu soo celin karaa dib waa ugu soo celin kartaa adigoo themes imaanaya kadib desktop icon settings ku soo laabanaya jack soo saaraya kadibna apply dhahaya kadibna okay si toos ah recycle bin waa uu noo soo laabtay waxa uu ka mid noqday iconiski inoo saarnaa desktop-keena okay ma bedeli karaa mid kamid ah waxyaabahan yani iconkiisa ama calaamadda sawirka ka muuqda this PC oo kale computer ka muuqda sawirkiisa ma bedeli karaa wax kale ma ka dhigan karaa dabcan adigoo ku soo laabanaya meeshii personalize kadibna themes imaanaya kadibna desktop icon settings kadib change icon ayaa leeyahay iconkan ayaa hadda ii dooran kadib waxaan ka dhigayaa oo kale computerka nooca kale ah kadibna okay ayaan dhihi doonaa kadib apply kadibna okay sida aragtaan wuxuu isku bedelay computerka aan soo doortay iconiska marka mid walba oo kamid ah sidaas ayaa u bedeli kartaa sawirka saaran I hope inaa hadda fahantay sawirka yani kuu muuqdo ma aha hadii kaas kaliya inuu saarnaanayo midka adiga rabtaa ka dhigan kartaa okay cancel iga dheh waxaan rabaa kan oo kale inaan bedelo iconkiisa change icon ayaa leeyahay waxa ii saaran kaas waxa ka dhigayaa oo kale computerkan laba madax oo isdul saaran camal ayaa saarnayd hadda waa uu isbedelay sida kuu muuqata computerka ayaan ka dhigay I hope in aad loo fahmay markaa raba dhammaantood inaan hal mar ka laabto waxaan dhihi doonaa meeshii igu soo celi kadibna restore default
okay mar kale kusoo laabo waxaan dhihi doonaa restore default okay midkii sidiisa ayuu ii noqday sida kuu muuqata kan kalena waa dooran doonaa markaan doorto kadib ayaa isna waxaan dhihi doonaa restore default sidii ayuu iigu soo laabtay apply okay ayaa dhihi doonaa haddaba waxaa rajaynayaa in desktopka computerka iyo waxyaabaha saaran aad loo fahmay okay shaashadan computerka oo windowska calaamadan ay saaran tahay ma bedeli karaa oo shaashad kale ma soo saaran karaa dabcan ha waa bedeli kartaa adigoo imaanaya personalize markaad timaado halkan ayuuba kaaga muuqanayaaba kan ayaa hadda saaran kaas ayaa ka dhigan kartaa okay shaashaddu waa isbedeshay kaadi sida kuu muuqata shaashadeena waxay isku bedeshay sidan okay sawir computerka iigu jiroo kale ma soo saaran karaa dabcan haa waa soo saaran kartaa adigoo imaanaya personalize kadibna hoos u wadaaya browse ayaa dhihi doontaa browse markaad dhahdo yani browse waxay ka dhigan tahay sawir iisoo bixi sawirka folderka uu ku yaalo ayaa imaan doontaa adiga oo markaasi saaran kara shaashadaada sawirkaas sidaan filaayo sawirkeenu waa uu isbedelay sidan ayaa samayn kartaa markaad rabto shaashada computerkaaga sawirka saaran in aad bedesho haddaba hadda waxaan kusoo ceshan doonaa sawirkii hore ee inoo saarnaa shaashada computerkeena anigoo imaanaya personalize isla markaana sawirkii hore kusoo celinaya waa ku mahadsantahay daawashada casharkan maanta waxaa isla fahnay waxyaabaha yaala shaashada computerka sidaa u bedbedeli karto sidaa yani u weyneyn karto u yareyn karto sidaa u qarin karto sidoo kale waxaa ku daraya sort by yani qaabka ay u dhigmayaan ma qaab magacaa rabtaa yani sida u kala horeeyaan a to z by name haddii aan ka dhigo a to z ay u dhigmayaan sort igu soo celi by size aa dhihi karaa yani siday u kala weyn yihiin oo mbiyadooda iyo kbiyadooda sidoo kale waxaa dhigi karaa nuuca u yahay itemka waa ka dhigi karaa sidoo kale waxaa ka dhigi karaa sort by anoo imaanaya waktiga meeshaan lasoo dhigay waktiga okay waxaan umaleynaya aad ina iskula fahnay shaashada computerka waxyaabaha saaran iyo sida loo bedbedeli karo I hope ina hadda yani wax badan ay kaaga kordheen aad ugu mahadsantahay daawashada casharkan